وكما جودك كوبادا عكتا ميسي مارادونا ميسي وكريستيانو رونالدو لكن dadku waxay kala iloobaan laacibkii oo sanadii sidaan yiri wuxuu ahaa ninkii ugu laacibsanaa ee indhahaygu qabtaan laacibkii uu Lionel Messi yiri wuxuu awood u lahaa inuu ka dhalin karo goosha meesha uu rabo laacibkii farsamadiisa darteed loo ayoomay heer uu hal jilib waayo balse markuu uu ku soo noqday garoonka 3 sano iyo bar kadib Brazil uu qaado World Cup-koodii asagoo noqday top scorerihii tournamentigaas waa laacibkii uu Jose Mourinho yiri si uusan dhaawac noqon lahayn wuxuu noqon lahaa laacibka ugu fiican ee kubadda abid dheero dadkuna ma aysan xuseen Ronaldo ama Messi waa laacibkii Ronaldinho lagu bixiyay Ronaldinho oo micnihiisu uu yahay Ronaldinho yaraa asagoo magaciisa uu ahaa labta ah Ronaldo waa ciyaartoyga loo yaqaan Ronaldo el fenomeno mucjisadii kubadda noobihii ugu fiicnaa ee kubadda abad soo mara daawada like-ta iyo subscribe-ta anaga iloobin Lionel Messi wuxuu dalalima Ronaldo ku amaanay inuu ahaa noobihii ugu fiicnaa ee kubadda abad dheela wuxuu yiri xawaaraha iyo farsamada uu Ilaahay siiyay awgeed cidna ma aysan celin karin wuxuu awoodna u lahaa inuu goosha ka dhalin karo meesha uu rabo Ronaldo halka Thierry Henry uu ka yiri dalalima Ronaldo wuxuu ahaa makhluuq kale ma uusan la mid ahayn ciyaartoyda kale Paulo Maldini oo rabay inuu Ronaldo difaaco ayaa wuxuu yiri markii ugu horeysay waxa ugu jirtay kalsooni iyo firfircooni aan aaminsana inaan ku eri karo dalalima Ronaldo balse ciyaarta markii habkaan biyo gaartay xawaarihiisii iyo xirfadiisii ayaa waxaan ogaaday inuu yahay ciyaartoyda kale ka duwan oo aanan celin karin halka Zinedine Zidane markii la weydiiyay waa kuma ciyaartoyga ugu fiicnaa la ciyaartay ama aad ka hor imaatay wuxuu ku jawaabay Ronaldo ayaa wuxuu ahaa ciyaartoyga ugu fiicnaa ee kubadda abad dheela Karen Seedorf ayaa ku jawaabay asagoo u sheegay dadka muhiimadda Ronaldo u lahaa oo yiri dalalima Ronaldo in badan ayaa la ciyaar waana arki jiray mucjisooyinka uu ku sameyn jiray garoonka iyo calaamidadaba mana uusan jiray ciyaartoy la mid ah haday noqoto xawaare farsamo geesinimo aragti iyo dhamaanba uu ahaa ciyaartoyga ugu xirfadda badnaa ee kubadda abad dheela xitaa Karim Benzema oo Lionel Messi ku hor yimid Cristiano Ronaldo la dheeray ayaa wuxuu yiri labadoodaba ma ahan buu yiri goodka dalalima Ronaldo ayaa wuxuu ahaa laacibka ugu fiicnaa ee kubadda abad dheela waxaan isku day jiray ranteedii inaan sameeyo wuxuu uu sameyn jiray mana aha wax fudud Rio Ferdinand ayaa wuxuu yiri dalalima Ronaldo wuxuu ahaa ciyaartoyga kali ah ee warda la'aan ay dhigay igaarsiyeena heer habeenkii ku horeeyay aan seexan waay inta aan la ciyaaray Materazzi oo la weydiiyay Messi iyo Ronaldo yaa fiican wuxuu ku jawaabay Messi iyo Ronaldo la isku daray ay wuxuu ahaa dalalima Ronaldo wuxuuna ahaa ciyaartoyga ugu fiicnaa ee kubadda abad dheela Ibrahimovic wuxuu yiri Ronaldo ma uusan ciyaarin kubadda cagta ee wuxuu ahaa kubadda cagta oo soconaysa
David Beckham oo Maradona Ronaldo la ciyaareen wuxuu yiri wuxuu ahaa ciyaartoyga ugu xirfadda badnaa ee abad kubadda soo mara. balse Jose Mourinho ayaa dadku wuxuu xaqiijiyay in Ronaldo iyo Messi ay ka gool badan yihiin dhallinyarada Ronaldo balse halka xirfadda aysan gaari karin dhallinyarada Ronaldo. wuxuu kaloo raaciyay haddii uusan dhallinyarada Ronaldo uusan dhaawacmi lahayn wuxuu noqon lahaa laacibka ugu fiicnaa ee kubadda abad soo mara. dhallinyarada Ronaldo wuxuu iska ahaa ciyaaryahan farxaani ah oo aan juhdi badan ku bixin caalamitada. hase yeeshee haddii uusan dhaawacmi lahayn waxaa xaqiiq ah inuu noqon lahaa laacibka ugu fiicnaa ee kubadda abad soo mara. haddii aad ka heshay fiidiyogan booq janaalkayga YouTube-ka MK Entertainment si aad u daawatid taariikhihii لاعبينتي كلا سيدا مارادونا ميسي iyo Cristiano Ronaldo. A creative soul and key stories just begun to unfold.